مرشح شيغدا مدحوينها حسبيغا جمال علي حسين ayaa maanta kala qayb galay dhoolatuska tartanka doorashada golayaasha deegaanka kumanaan kamid ah taageerayaasha murashaxiinta xisbiga ucid uga sharaxan gobolka Gabiley magaalada Togwa Jaale ku taal xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya maalmihii u dambeeyay bartilmaameed u ahayd dhoolatuska murashaxiinta ee isu soo baxa taageerayaashoodu ay ku qabsadaan magaaladaasi Togwa Jaale مرشح شيغدا مدحوينها حسبيغا ucid جمال علي حسين ayaa markii u horeysay si adag oo aan kala lahayn u weeraray xukuumadda iyo xisbiga talada haya kulmiye isagoo ku eedeeyay inay wadaan talaabooyin cadaalad darro ah oo ka baxsan xeerarka iyo shuruucda dalka u yaala isla markaana ku takrifalayaan hantidii ummadda waxaan u xusay in tagitaanka dalka Soomaaliya iyo magaalada madaxda Muqdisho ay noqotay wax caadi ah maalmihii u dambeeyay مرشح جمال علي حسين oo weerarkii ugu cusub ku ekeysiyay tan iyo intii uu soo galay saaxadda siyaasadda Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Siiraayo waxa uu farta ku fiiqay inay dalka ka jirta cadaalad darro aan la qiyaasi karin sidoo kalena ay qabyaaladda iyo kala qaybsanaanta bulshadu bareer noqotay isagoo si gaar ah u xusay in TV-yada laga caadaystay hadal haynta qabyaaladda oo rag muddo karay ay soo fariistaan sidoo hadalkiisa u dhigay مرشح شيغدا madaxweynaha ee xisbiga ucid waxa uu la hadlay siyaasiyiinta xamar u yaacay kadib markii ay cadaalad darro kala kulmeen xukuumadda madaxweyne Siiraayo kuwaas oo u gudbiyay fariinta inaanay u fiicnayn inay dalka ka cararaan hase yeeshee ay u wanaagsaneen inay dalkooda ka dhex dagaalamaan waxa kale oo murashaxa shaqada madaxweynaha xisbiga ucid Jamaal Cali Xuseen ku sheegay khudbadiisa inay dalka Soomaaliland waqtigan caadilka ah ka muuqato xaalad saansaan culaaleed ah taas oo ku tilmaamay haddii ay dhacdo cadaalad darro ku saabsan tartanka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dhawaan dalka ka qabsoomi doona Jamaal Cali Xuseen waa arrimaha ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa gobolka Gabiley in xisbigu uu number 1 ka yahay taas shaqeeyay ma jiro waxaan ognahay imika maanta waxa lagu tartamayaa musharaxiinta ayaa suurta gelinaya in xisbiyaduna soo baxaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid wuxuu taageero ka haystaa mililaa galbeed mililaa bari waan ku weynahay waan ognahay waan isku kalsoonahay laakiin marka aanu sheegno ifafaalaha dhibaatooyinka muuqanaya taas macnaheedu maaha xisbiga ucid buu baqanaya anagu number 1 baan already dadkuna waa iyaga nagu tiriyay anagu isku maanaan tirin taageeradana waa cududana waa la arkaa wax walba waa la arkaa laakiin xisbiga talada haya waxaad moodaa in waxyaalo ku cusub Soomaaliland in ay ka socdaan doorashooyinka doorashadoodii ugu horeeyay ee xukuumad ahaan ay qabtaan waa tan lagu tijaabinayo dadka Soomaaliland ku tijaabinayay doorashooyinkii hore saddex baa soo dhacay xisbigii hore udub uu ka soo dabaashay dalka kala soo dabaashay dimuqraadiyaddii uu ka sameeyay laakiin xisbiga kulmiye waxaad moodaa inuu toodii ugu horeeyay ula daalaa dhacay way halkaasina ay ka muuqato ifafaalooyin aad iyo aad u qaabtaray wadankii qabyaalad baa saameysay qabiilkii baa lala soo istaagay telefishinada Muqdisho ayaa waxay noqotay wax furan oo dadkii si toos ugu cararaan qadiyadii Soomaaliland baa daciiftay اعترافكي جبيجي waxa weeye ayaa laga dhigay wax taagan oo aan cidba raadinayn اعتراف kale nagu sheekeynay اعتراف baa la doonaya aan wax اعتراف doonaya ma arag waxaan arkay wax la wada hadal xamar ayaa warnin ku dhaartay kitaabka jaamaca ku dhaartay in uu xukumo ilaa raas kaamboni ilaa sayla sideebad aad u aaminaysaa waxa oo dhan aad ugu dhiibanaysaa warsideeba u dhacay kartaa in Soomaaliland ay dadkii loo kala dheereeyo salaadiintii halkan ay dadka ka magacaabaan baarlamaankii Soomaaliya warsideeba Soomaaliland waxaad moodaa inay isku furan u dhacay halkan ka filayna qadiyadii Soomaaliland horumariyo waxaad moodaa inay hoos u dhacday aad iyo aad hoos ugu dhacday waxaad moodaa wadankiiba in la geliyo baqdin isbiida mucaaradka ayna baqanayaan dadkii inay baqanayaan ay juleyntii inay badato in dadkii la daba socdo waxaan waa wixii siyaad barre u shalay ku soo dhacay waa wixii uu ku baxsaday waxaan leeyahay ilaahay khaatimada khayr idinku dhameeyay kulmiyo ummadan si sharaf leh idin dooratay codkoodii bay idin siisay maanta la idin kama filaayo inay u